maxbuus mushaarkiisii oo dhan ugu deeqay muslimiinta reer Falastiin. Intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsanid. Sanduuqa la isku taakuleeyo ee GoFundMe waxa uu ilaa hadda lacag dhan $102,000 u ururiyay Xamza oo ah maxbuus Mareykan ah oo dhammaan lacagihii uu shaqaystay kana dhex shaqaystay xabsiga gudihiisa ugu deeqay walaalihiisa muslimiinta ah ee reer Falastiin. 40 sano ayuu maxbuus ahaa waxaana goor dhow la filayaa in uu ka soo baxo noloshaasi oo uu galay isaga oo markaasi soo qaangaaray. Waxaa toddobaadkii hore lacag dhan $17.74 oo u dhiganta 136 saacadood oo shaqo nadaafadeed ah oo uu ka dhex qabanayay xabsiga gudihiisa ugu deeqay lacagtaasi muslimiinta reer Falastiin ee duqeynta ay ku hayso Israa'iil. halkii saac waxaa loogu dhufan jiray 3 senti sida lagu qoray mareegta baraha bulshada ee sanduuqa GoFundMe. isaga oo aad ugu fog yahay qalbigiisa muslimiinta reer Falastiin ayuu haddana waxa uu awooday in uu wax kasta u sameyn karo. waxa uuna ku dhiiraday in lacagtii uu shaqaynayay sanad dhan uu ugu deeqo kuna taakuleeyo walaalihiisa reer Falastiin. markii sheekadiisa deeqsinimada ah ay gaartay meel sare waxaa lagu fikiray in walaalkaasi muslimka ah loo fidiyo caawinaada si loogu soo dhaweeyo nolosha cusub uu goor dhow gali doono ee ku sugaysa banaanka marka uu xabsiga ka soo baxo. samafalayaal ayaa doortay in ninkaasi ay caawiyaan sanduuqa taakulo ahna ay u furaan. ilaa hadda sanduuqaasi waxaa ku dhacday lacag gaaraysa $100,000 oo la doonayo in ninkaasi lagu caawiyo marka uu u soo baxo banaanka.